السلام عليكم. حل sheegtu waxa ay ahayd 7 subaxnimo iyo 15 daqiiqo 15kii bishii 11aad 2021 waxa aan ka soo baxay guriga waxaana aan ku sii jeeday goobta shaqada waxa aan ka fogeynba guriga ayaa waxa wada yar oo luuq ah iyaga hortimi hooyo da'yar oo dusheeda diif darani ka muuqato dibnaheeda erayo durugsani ka soo baxayaan waxa ay wadataa 2 caruur ah mid dhabarka ayaa ay ku sidaa midna gacanta ayaa ay ku haysaa waxa ay leedahay erayo ay ka keentay duruuftu aanay se rabin in ay dabayshu maqashiiso wadnaha 2 caruurta ah ee ay daadahaynayso waxa ay leedahay hana dhibina inta aanu idinka tagayno oo aanu tahriibayno waan jaleecay aniga oo u haystay in ay yihiin erayo ay dheeldheelid ka keentay oo aan dhabka ahayn waxaase indhahaygu ku dhaceen muuqofeed oo aanan astaamihiisa qalin idinku qori karin aan ka ahayn in wixii aan ka gaadho aan idinku sheego hab sugaaneed iyo hanaantixeed waa maansadhan 102 bayt oo aw dareenku iga keenay taas oo ku bilaabmasa sida tan aroor horumaray tahay anigoo kobtii shaqo ku sii jeeda aagay luuq aan maraayo dhabahaygu uu yahay soo erayo waaweyn iyo inantii tiriye duruufuhu irdheeyeen indhahaygu may qaban oo dhaguhu waxay tidhi u dhug yeelan gooroon aan sifeeyo inantee idinkuuna maqalkiyo ee amaasha dhagihiin markii aan qiyaasay oo hilaasay cumrigeed oo daraskan la kaashaday waxa uu yiri 4 ayay laba dheer tahay oo 2 tobnaad bay 10 lay u sidataa isugeysku wuxuu yahay adiguba bal soo saar sanadaday ahayd baan inoo tiriyay sakiyow marka xigana aan sunto arageeda inanta oo asteeyo muuqeed jaadad badan ayaamuhu oo kala sadroono qofba waa ayaankii hoga ay ku qaydneed iyo araga jooguba qof arkaa sifayn kara waxa aad ka shakidaa inay guri ka timiyo aadmi kale ba joogeen araguna ka sii daran inta ay aflabadii kala qaaday ayay waxay ka soo tiri inta aan tahriib iyo indhihiina ka tagoon aadaya meel dheer iga daysta qaxarkin cidda ay u jeedaa waa 2 dhalaan oo midi araxda suran yahay ilayn qayd ma oran karo ilmaheeda soo haray ay gacanta hayso erayaday ku leedahay ayaamaha duruuftiyo ayaankeeda mooyee ohe may jeclaateen ubadkeedan cawlani hooyadu intay tiri ina ay maqlaan oo anfariir la joogaan ubadka habaaskiyo hooyadooda inanta ah eed moodo 60 iyo inay dhaaftay kotankii saygeedii qabay iyo aabahoodii dhalayme isweydiin da'weyn iyo waa su'aal adkaatee idinkuba bal sheego gardariyo inay tahay dayac aan la qarin karin eray dhaafsan maan garan ilaahayna weynba ku cadeeyay aayado midka uu masuul iyo geed sarabawaab iyo u kormeere uga dhigay inta uu la nool yahay ubad kolay ahaadaan iyo ooridii dhashay isagaa u maqano aadmiga u dhuumbaday alwahaabku siduu yiri kumeen ninkaasow aan afmeero maansada ubuucdeeda kaga tago intay gaari doontee ummadaad ka dhalanteen eel bay la jiiftaa taaha ay la daysee mid kastawba aagee iridaad ka geli layd aygaana qoobee badhaadhuhu u sumad yahay magacaygu waa Sakariya Haaruni halkanina waa Haaruni Media inta aynu ku kulmi doono muuqaal kale oo xiiso badan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh